kulankan ay maanta isugu yimaadeen maamulka macallimiinta ardayda waxgaradka iyo dhammaan mas'uuliyiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nabawi Balcad ayaa waxaa lagu doortay gudoomiyaha guud ee ardayda iskuulka Imaam Nabawi iyo ku-xigeenkiisa ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 iyadoona xilkan gudoomiyaha laga wareejiyay Yuusuf Maxamuud Xuseen oo xilkan hayay sanad dugsiyeedkii tagay 2018-2019 ugu horeyn musharaxiinta u tartamayay xilka gudoomiyaha ardayda dugsiga Imaam Nabawi ayaa waxa ay khudbado ka horjeediyeen ardayda iyagoona ballan qaaday hadii ay ku guuleystaan doorashada in wax qabad muuqda ay la imaan doonaan dhammaan idin salaamaya ardayda ka tirsan iskuulka hoose dhexe sare Imaam Nabawi maanta waxa halkan ka socoto doorashadii sanad walba ay ka dhici jirtay iskuulka sida la socotaan qof walba waxa uu jeeday waxyaabii uu qaban lahaa aniguna waxaan idin ballan qaadayaa inaan noqono guddi u naxa una damqada u istaaga danaha ardayda iskuulka gaar ahaan ardayda dugsiga hoose iyo ardayda sare si ay u gaaraan xiriirkooda saaxiibtinimo si aan maanta la socono ardaydan hoose dhigta fasalada afraad iyo ardaydan dhigta fasalka dugsiga sare islama socdaan ismana yaqaanaan waxaan idin ballan qaadaynaa taas inaan soo yareeno ardaydana ay isbartaan waxaan kaloo idin ballan qaadaynaa inaan soo yareeno waxyaabihii ardayda qaar ay sameyn jireen aan ficilada xun ummadii dashan weyso waa loo talinayaa ee aan tashano oo aan u tashano sidii aan cadaalad iyo midnimo u heli lahayn iskuulku wuxuu u baahan yahay gudoomiye fahmi kara duruufaha haysta isla markaasna diiradda saara waxyaabaha ugu muhiimsan si loo gaaro maamul wanaag ku dhisan isla xisaabtan dhab ah iyo howlgal wada tashi ah isqancin isfaham iyo isu samir iyo socod joogto ah waxaa naga go'an inaan dhageysano cid kasta oo wax tabanaysa waxaa naga go'an inaan dhageysano cid kasta oo wax tabanaysa waxaa naga go'an inaan garowsho siino cid kasta oo garowsho u baahan waxaa naga go'an inaan raali gelino cid kasta oo mudan in la raali geliyo waxaa naga go'an inaan ka mira dhalino dib u heshiisiin dhab ah oo ka hirgasha dhammaan ardayda iskuulka laakiin marnaba ma ogolaan doono inaan dib u noqono marnaba ma aqbali doono cid kasta oo is hor istaagta dib u yagleelidda horumaridii iskuulka waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta kadib ma jiri doonto koox gaar ah oo habmaamka iskuulka wax ka bedeli karta arday kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ka bedelo dib u yagleelidda horumaridii iskuulka uu siman jiray arday kastana maanta ardayga dhigta fasalka form 3 iyo ardayga dhigta fasalka 7 maanta kadib haddii aan doorataan isku xuquuq ay noqon doonaan ardayga form 3 waxa uu leeyahay aan kan siin doonaa kan dhigta fasalka afraad waana mahadsantihiin intaasi kadib ayaa waxaa la gudagalay in ardayda dugsiga Imaam Nabawi ay doortaan gudoomiyaha ardayda oo ay u tartamayeen ilaa iyo 4 musharax iyadoona ugu dambeyn doorashada uu ku guuleystay Saacid Xasan Cali oo sida ku noqday gudoomiyaha ardayda dugsiga Imaam Nabawi Balcad isagoo noqday musharaxa kaliya ee ugu codka badan ka oo codkiisa ay gaarayeen 52 cod halka musharaxa ku xigay uu helay 25 cod waxaana si heer sare ah u sharaxaya qaabka ay u kala heleen codadka musharaxiintii ku guuleystay xilka gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa Ustaad Cabdifataax Yuusuf Qaliil oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiga Imaam Nabawi xubinna ka ah guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha ardayda Imaam Nabawi waxaan hadda ku dhawaaqaynaa natiijadii codeynta مشرح حسن علي waxa uu helay hal cod مشرح يوسف إبراهيم waxa uu helay 3 cod مشرح حنت حسين waxa uu helay 5 cod مشرح عبد الرحمن محمد عثمان waxa uu helay 25 cod سعيد حسن علي مشرح سعيد حسن علي wuxuu helay 52 cod sida aqlabiyada codeyntii meeshan ka dhacday waxa ku guuleystay سعيد حسن علي وعلينا حلك هذا الله كله قرقله maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nabawi Balcad Ustaad Mawlid Cali Islaw oo doorashadan dibad joog ka ahaa
ayaa ugu horeyn bogaadiyey hanaanka iyo qaabka wanaagsan oo ay cadaaladda ku dheehan tahay isagoona dhanka kale hambalyo iyo bogaadin u diray gudoomiyaha cusub ee ardayda dugsiga Imaamu Nawawi Balcad ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 Saacid Xasan Cali oo ku guuleystay doorashadan maanta ka dhacday hoolka dugsiga Imaamu Nawawi. taariikhdaas iyo maartay doorashadaas runtii waxay dib ugu noqonaysaa tartanadii iyo maartay abaabulkii la soo galay loo soo galay maartay maxaa la yiraahdaa doorashadan runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa anigoo maartay ku hadlaya magaca maamulka iyo macallimiinta dugsiga ardayda wax dooranaysay ee maanta waqtigooda maartay u huray iyagoo qiimeynaya maartay ardayda walaalahooda ee musharaxiinta ah sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan musharaxiintii ka qayb gashay doorashada oo runtii ayagoo maartay si habsame leh halkan maartay uga soo qayb galay ayagoo qaarkood ay ku guuleysteen qaarna ay maartay codkii ay maartay ku waayeen dhammaantood waxaan u mahadcelinayaa hadduu la yidhaahdo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa idaacadda Balcad oo runtiina ayada halkan runtii qayb weyn ka qaadatay duubista iyo barnaamijkan gudbintiisa waxaan mahadcelinayaa maamulka iyo wariyaasha maartay idaacadda Balcad sidoo kale waxaan mahadcelinayaa macallimiinta barnaamijkan ayagana maartay oo guddiga doorashada ahaa ee ka qayb qaatay ama isku soo dubariday barnaamijkan waxaan leeyahay aad oo mahadsantihiin jasaakallahu khayrakum waxaan rabaa halkan inaan hadal kooban ka iraahdo markaan dib ugu noqdo doorashada halkan ka dhacday waxay soo socotay muddo sanooyin ah runtiina waa doorashooyin tixana ah oo loogu talagalay in sanadba sanad ay isugu dhiibaan ardayda dugsiga hoose dhexe sare Imaamu Nawawi barnaamijkan oo ahaa barnaamij aad u xiiso badan waxaan dhihi karaa doorashada maanta halkan ka dhacday waxay lahayd xiiso gaar ah sida loo soo abaabulay sida musharaxiinta ay isugu soo dubarideen ama ay u soo abaabuleen sida ay u soo diyaar garoobeen gudoomiyaha xilalka macnaha musharaxiinta u soo diyaar garooday qabashada xilka gudoomiyaha iyo kan ku xigeenka ah runtii waxa ka muuqatay maxaa la yiraahdaa bisayl ah in ardayda dugsiga hoose dhexe Imaamu Nawawi ay u gudbeen inay ka gudbaan qaabka wax loo doortay ee maanta diyaar u yihiin inay baraan ardayda kale ama dugsiyada kale taas waxay noo noqonaysaa maartay sharaf iyo qiimo weyn ayay u tahay dhammaan ardayda macallimiinta iyo maamulka dugsiga Imaamu Nawawi Balcad iyo dhammaan guud ahaan degmadan Balcad hadduu la yiraahdo waxaan rajaynayaa hadduu la yiraahdo sanooyinka soo socda in qaabkan qaab ka fiican inaan loo gudbo hadduu la yiraahdo ayadoo loo gudbi doono qaab ka fudud oo loo doorto qofka musharaxa ah sidoo kale waxaan maartay aad maartay ugu mahadcelinayaa musharaxiintii halkan ka hadashay oo hadalkoodii maartay ka dhiibtay halkan ayagoo maartay jeedinayay haddii laga guuleystay haddii ay guuleystaanba inay garabgeli doonaan qofkii loo maartay loo doortay halkan hadallada ay ka jeediyeen wuxuu ahaa hadallo runtii maartay ku dayasho mudan mustaqbalkana dadka musharaxiinta noqon doona mustaqbalka soo socdana inay ayaga maartay uga daydaan hadduu la yiraahdo sida hadda ka muuqatay maartay halkan looga tabinayaba doorashada waxay u dhacday si xor ah qof walba waraaqadiisa ayuu ku soo qoray qofka uu dooranayay taasi waxay muujinaysaa bisayl ay gaareen ardayda dugsiga Imaamu Nawawi Balcad waxaana maartay jecelahay ama maartay jeclaan doona hadduu la yiraahdo aanan rajaynayaa in looga dayan doono bisaylkaas iyo qaabka wanaagsan ee maartay maxaa la yiraahdaa ee xorta ah ee aan maartay wax caada saarnayn ay maartay maanta wax u doorteen waxaan rabaa maartay kelmadda ugu dambeysay inaan maartay ku gubaabiyo ana maartay maxaa ugu dardaarmo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka ee maanta nasiibku u yeeshay in loo doorto xilkaas sidaad la socotaan xilka sidiisaba waa xil aad u mug weyn xilkana ma galo in yaryaraysi ma galo waxaa loo baahan yahay maadaama aad tihiin gudoomiyihii iyo gudoomiye ku xigeenkii maanta nasiibku u helay in la doorto in ay idin sugayaan dhammaan ardayda dhigata dugsiga Imaamu Nawawi inaad u hogaamisaan wadda mustaqbal leh waxa maartay idinka sugayaan ardayda hadduu la yiraahdo inaad u hogaamisaan wadda toosan sidoo kale waxa idin sugaya maartay barnaamijyo fara badan inaad qabataan barnaamijyo cusubna aad ku soo kordhisaan hadduu la yiraahdo annaga haddaan nahay maamulka iyo macallimiintana waxaan diyaar u nahay inaan garab idinku siino
barnaamijkiina maartay shaqada ay idin sugayso sidoo kale annaga haddaan nahay maamulka iyo macallimiinta waxaan diyaar u nahay hawshaas inaan maartay idinku garab galno hadduu la yiraahdo waxaan idinka sugnaa waa shaqo sidoo kale ardayda aad mas'uulka ka noqon doontaan ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay maartay shaqadiina maartay idinku garab galaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhammaanteen inuu maartay ilaahay noo fududeeyo shaqada halkan maartay noo taala ugu dambeynna gudoomiyaha cusub ee ardayda dugsiga Imaamu Nawawi Saacid Xasan Cali oo ka hadlay goobta ay ka dhacday doorashada ayaa ardayda uga mahadceliyay sida kalsoonida leh ee ay codadkooda ugu shubeen isagoona sheegay in uusan dayici doonin mas'uuliyadda ay u dhiibteen ardayda isla markaana ballan qaaday inuu la imaan doono wax qabad muuqda waxa maanta dhamaantiin aad sheegteen in rabtaan isbedel cusub oo ku yimaada iskuulka iyo ardayda iyo macallimiinta haddii aad ani doorateen ma aha in dadka kale aad dooranina dadka kale waa doorateen laakiin qof kasta waxa uu sameeyay waxa uu rabo iskuulka u baahan yahay ayuu sameeyay haddii aad doorateen waxa ay la mid tahay in aad u baahan tihiin isbedel cusub oo ka yimaada ardayda iyo macallimiinta waxaan idin ballan qaadayaa maanta kadib wixii hore aan kugu soo ballan qaaday oo dhan inaan fulin doono waxyaabo waxaa jiri doono aan sheegin laakiin aad arki doontaan waxa qabadka aan sameeyay ama aan sameyn doono ardayda dhan kan afraad dhigta iyo kan form 4 ka dhigta maanta kadib ma jiri doonto in la kala sooco ardayga dhigta fasalka afraad iyo kan form 4 waxay noqon doonaan mid isku mid ah hal ay noqon doonaan macalinka iyo ardaygana waxaan sameyn doonaa guddi isku xiriiriya oo yareeya khilaafyada macalinka iyo ardayda waan maasantiin ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaamu Nawawi Balcad ayaa sanad dugsiyeed waliba doorta gudoomiyaha ardayda dugsiga waxaana sanad dugsiyeedkii tagay xilkan gudoominimada ardayda hayay Yuusuf Maxamuud Xuseen